habrayo gobatin gobgobodashaatin gaari korisiyo geed mudelabatin laan gebi ku taalo kudini taaban baatin gidigin guriya baar bilmagayda sharaf badan aan la gaarin baatin haddaba waxaa mushkilada ninka maanta gabayga noocaas imika haddii waxa xun lama sheego lamana qaado ee 45 sano ka hor jiray ee gabadheega ahaa ninka intuu buug taariikh sooyaala qoray oo ugu magacaabay Cabdilla Xasan haddana gabaygaas soo dhexgeliyay ee boogga ku qoray 49 ku qoray waxa uu u jeedaa waxa la garanay laakiin ma dhageysanayno anagu colaadna isku qaadi mayno isna dili mayno isna caabayn mayno wallahi adigana kulada tagayna ninka madaxweynuhu xilka ka qaada ummadda uma hayn kara ninka noocaas xilka waa inaad madaxweyne xilka ka qaada marka xigta waa in ninkaasi buugiisu qoray meel kastaba intuu isqarqareeyo soo ururiyo oo ummadda horteeda ku gubo hawsha qaranka u haya ninkaasi ma geeyo mana laguna aamini maayo saacadda annaga nooma aha madaxweyne hooyadaa buu caayay hablaha deeganan baa ku dhashay hablaha nacaaya cidagalaha soo muuse kama dhalay inan cidagali hooyadaa baa nacaayay madaxweyne hooyadaa baa buuggaa sooyaalkaa lagu qoray ayayda ayaa lagu qoray kuwaa noo dhaxay marwooyinkaabaa lagu qoray habaryaraha ayaa lagu qoray waa mid dhammaan ummadda Soomaaliyeed aarigeyn waxaan leeyahay madaxweyne shakhsi gafa haddii la qabto cudurku wuu baxaya ninkaas wuu gafay haddaad wax ka qabato cudurku wuu bixi doona haddaadan waxba ka qabanna annagaa gacanteeda wax kaga qaban doona assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan anigu qodobeynayaa 2 kalmadood oo keliya aniga waqtiga ilaashanaya ninka siirkii wuxuu horta u socdaa isku dir uu doonayo dad dhintay inuu ka been sheego inuu qabyaalad iyo wax imika in hore looga sii socday uu dib u saafaqo laakiin cid dib ugu noqon mayso mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa wasiirkii aad warfaafinta aad u magacawday wasiir uu ummadda u noqon kara iyo wacyigelin uu ummadda u siin karo ma jirto laakiin wuxuu saafaqayaa amba uu jeedinaya oo ummadda dhex gelinaya xumaan bari hore lagu kala bogsaday lagu kala tagay wixii dadkii dhintay ay hore qoreen iyo wax aanay oranba ayuu ka been sheegay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne anagu ku dhihi mayno gabdhaha ciidagale ayuu wax ka sheegay gaar ahaan baan u cabanaynaa ma odhanayno laakiin waxaan ka hadlaynaa haweenweynaha Somaliland oo dhan ayay ku tahay lafjab in qaranka Somaliland ay ka mid yihiin haweenka ciidagale lagu dhaxaayo waliba nin wasiira oo dadka u haya xil inuu buugu qoray 7 sano ka hor maanta la soo qaato oo wuxuu ku qoray la soo bandhigo taas waxay keenaysaa inaanu wasiirku ka fiirsan taariikhda iyo joogitaanku joogi doono ama xil wadanka looga magacaabi doono umu haysanin laakiin way dhacday taas bedelkeeda madaxweyne waxaanu kaaga sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh in aad wasiirkaana xilka ka qaado buwaagtana uu soo ururiyo gacantiisana uu soo ku gubo dadka uu ku gafay hablaha hablaha ciidagala weyne uu ku gafay inuu hor yimaado anagu mid hor imaan odhan mayno laakiin haweenweynaha ciidagala uu ku qasbayay inuu hor yimaado uu yiraahdo waan khaldamay aniga khaldamay xirdi iyo xumaan aniga igu jirtay baa igu kaliftay hal layga raali noqdo degdeg baan u sugaynaa dawladana waxaan ka codsanaynaa oo leenahay kaasoo kale wuxuu dadka wuxuu sameeyo mooyaane iyo kala fogeeyo dadka sii kala fogeeyo mooyaane Somaliland oo wada joogaysa ma jirto maalin walba wax kale oo dad cabanayo kala wada arki doona laakiin gaar ahaan
imaka cabashadani maaha cid gaara oo taabanaysa dad gaara laakiin waa hooyooyin waa sodoho waa hablahoodoo kale waxaan uu ku qoray afar buuggiisa oo uu ku macneeyey cay aan gabasho lahayn degdeg baan u sugaynaa haddaan nahay haweenweynaha ciidagale jawaabta degdegaan sugaynaana waa wasiirkoo xilka laga qaado buwaagtuu gacantiisa ku gubo dadkii uu ku gafo hor yimaado idhaahdo waan gafe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi nin la yidhaahdo guri balaayo oo inaga dee buugii lagu qoray horta taariikh hablaha ciidagale hore ayna u lahayn maanta loo samayn maayo isaga marka hore qodob baan leeyahay waxaan leeyahay haddii aanad ka jawaabin ama aanad dib uga hadlin oo aanad raaligelin ama xaal ka bixin qofku way meel u qaldami karaa horta lagu barto islahaa buuggan hablaha ciidagale markuu ku qorayay sababta ay tahay buuggiisu hadduu socon waayo cayda hablaha ciidagale inuu kuma iibsanahay midnas waxaan farayaa madaxweynaha somalilan waxaan u sheegayaa ninkan waxaad ka dhigatay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qofka dhaqanka loo dirtaa waa inuu noqdaa qof isagu ku dhaqmaa oo ah umaadkiisa raacin wuxuu ka soo jeedo iyo siduu yahay iyo buugga uu hablaha ku caayay intaba umaad miiriyo madaxweyne waxaan kuu sheegayaa hablaha daawud ismaaciil ee caayay waa hablaha hooyada cadar ay ka soo jeedo waxaan kuu sheegayaa uma malayna inay arrinkan cunsuriyadu ku jirtaan malaynay sababtoo ah buugga taariikhda waxaa la qoray waqti horena inankii soo saaray weli cid ka hadasho inankaa beeshoodii ma jirto weli madaxweyne ka hadlay ama yidhi kabdood ama xaal ka bixina maynaan arag soo gabagabaynayaan leeyahay guri balaayo waa inoo bilaabantay wiilkaa dabadii waan la fadhiyi doonaa ama waad isdhiibi oo buugaagtaad gubi oo xaal baad bixi oo xilkaad ka digi ama suba wallaahi inagoo dhangad sidan ama beentayba horaaye la yidhaahdo iyo cumar ciidina jibaax ayaa BBC-da berigii la yidhi keebaa cayda badiya dabadeeta markuu dhameeyey mid waliba caydiisii waday ayuu horaaye yidhi waxba yahay dee horta ninkan waa waxba yahay oo wax u hadhay ma jiraan waxaan se idiin sheegayaa anuu gabayada ma aqaano laakiin ilaa 3 habeen 4 habeen waan yar xanuunsado madaxay xanuunay waxbaan yar yidhi bal iga yar eego waxaan idhi doqonow madhaaco kay maradu diidow maamuus la'aanow kii magaca waayow mukulaalagonow waxa duusho waxa dalalka aado tacsay aaraado dee waxba yay baatee maxaan kaala hadlaa wasiir baa la yidhi noqo lama odhan xaawalayda falanqee wax ka sheeg habluhu meel wal ooy joogaanba sharaf bay mudan yihiin kuwaasaa mudan kuwanaa mudan magaca soomaaliyeed amba islaamka hablaha islaameed mid waliba karaamo iyo sharaf bay mudan tahay ceemale habluhu ceemalaha waxaa loo diray dee waxa la yidhi wasiir noqo kursigan ku fadhiiso lama odhan xaawalayda ka shaqeeye codsanaynaa madaxweynaha somalilan ninkaa haddaan naloo keenin annaga raggayagu uma qalmaan anigaa dumarkaygana u liito dhankad baan kaga soo saarayaan ku fadhiyo hablaha ciidagale waa hooda gebigood hadiyad eebba weeyaan iyo lama helaanka waa hormuudkii dalka iyo hurinta reer sheekh halgankii meel bay ku leeyihiin lama hilmaamaan horumarka dalkay jecel yihiin haatan dabadeed halyeeyaday dhaleen baa caddayn horumarkoodii hoyga ay dhistaan baa lagu hagaagaa ee halkan aad kala qaaday baanan haatan garanay nin hablaha ciidagale halkan cadho iyo gadood bay u yimaadeen waxaana qabanin baana lagu sameeyey waxaan leeyahay goblan tala adduunyooy waa guri barwaaqa waa guri abaareede ilaahay calaamaha ku rida ninka ceebteenna bugaagta ku qoray ee inoogu talagalay inay carruurta yaryar ceebteenna inaga ku hadaaqdu inacaayo uu qoray nin la yidhaahdo axmed cawaale oo ah brofesor ninkaasi wuxuu qoray buugga wakhtigan isla wakhti u dhow uu guri sareeya qoray buugga marka buugga uu qoray ninkaasi waxa uu ku sheegay qolo la yidhaahdo jibriil abokorka ayuu ku sheegay iyo qolo kale ayuu isxaaqan u malaynayaa inay ahayd ayaa wuxuu ku sheegay in uu yahay nin muxuu ahaa inuu buugga inay yihiin inay oromo ka soo jeedaan buuggaas markii la qoray amba sheekhaal ay la galaan buuggaa markii la arkay waxa ninkaasi magaalada waxa laali wixii jibriil abukar deganaa weerar bay ku qaadeen buuggii ninkii wuxuu ku xidhnaa CID-da 3 cisho
saddex cisho ayuu ku xidhnaa CID-da markii lagu xidhayna waxa lagu xukumay inuu waxa laaliyo waxa buug baxay intuu soo ururiyo uu dab qabadsiiyo waxa aflagaadada kaliyaata lagu haystayna waa reer uu yiri waxay ka soo jeedaan muxuu ahaayay sheekhaal haddaba maanta ninka guri sareeye wuxuu sheegay dumarka ciida gale ayaa uu ka hadlay waxaynu ognahay dumarka ciida gale ee uu ka hadlay inay madaxweynaha hooyadii suuban ku jirto laakiin wuxuu ku helay darajo ayuu ku helay iyo xil ayuu ku helay sidaan filayo waayo madaxweynuhu buugga la 2012kii la qoray ee intaasoo dhan joogay waxaan u malaynayaa inuu og yahay marka waxa weeyaan ninkaasi horta uma qalmo inuu wasaaradda warfaafinta wacyigelinta uu haysto umana qalmo inuu dalka soo hol fadhiisto oo uu noqdo qof xil guri sareeye aniga cashuurtayda ayuu ku fadhiyaa meesha waayo dumarka Somaliland gabigoodu way ka siman yihiin maanta aniga hadduu caayo bari toolana tuudhalu caayaya 10 hablood buu leeyahay waxa weeyaan markaa haddii uu madaxweynuhu uu waxba ka qaban waayo waxaan u sheegayaa guri sareeye in ay imika bilaabmatay ciyaartii isagaa bilaabay annaguna waanu dhammaynaynaa waxa kale oo u sheegayaa Somaliland in ay dumarku nabadgelyadana dhaliyaan dagaalkana dhaliyaan waxa jirta waxaan la yaabi jiray taariikhii hore ee gabayada la isu tirin jiray baa waxaan moodi jiray guri barwaaqo iyo aabihii in laga gardarnaa laakiin maantaan ogaaday gabayadii taariikhii hore in ay ku bannaan yihiin gabay baa waxa jira oo la yidhi gabay baa wuxuu ahaa nin magaalaha heetiyo mare ku hayruufa oo macawusu hoos u dhigay shaal ku hamagsiiya hargeysana markuu qaadka cuno faraska heeseeya haddana aan la hadhin maalintii heegan laga qaaday habka shiishka loo ridiyo nimaan banin harnaankiisa marka waxaan leeyahay waxa inay taariikhdaasi maanta isaga iyo aabihii ku salaysnayd maantuun baan ogaaday